aabe aaw adiga aabaha aabay anigu dhintay aabaha uu dhintay allah u naxariisto inta ka shaqeynaysa xirfadan casaynta ku shaqeynaysa wax dhibaatooyina oo aad kala kulantay dadka ma ay jiraan ay maxay yihiin marka meherida dadka ka shaqeysaneen waxaan dhahayn meeshan ka kombiyaalka inay darbaan kombiyaalka inay qaadaan meeshan ay ciirneen way dhibaatooyin kala kulantay ma ay jiraan ay maxay yihiin marka koow aysan lacagtan u dhibaya dadka koow aysan lacagtooda ku dhibaa maareynta qof ama qoysi waa mid kamid ah waxyaabaha ugu adag ee qof bini'aadan ah qabto iyadoo ay saas tahay ayaa haddana waxaa jira dhalinyaro daayar ah oo qoysaskooda ku qoodiya shaqooyin ay adag tahay in dadka qaarkood ay qabtaan ibraahim cabdiwahaab nuur waa wiil 13 jir ah oo ku nool magaalada Gurceel waxa uu ku shaqeeyaa xirfadda loo yaqaan baalashka ama caseeyaha taas oo ugu shaqeeya qoyskiisa oo dan yar ah oo ku nool magaalada Gurceel isla markaana ka kooban 6 qofood waxa uu ii sheegay in dhaqaalaha uu ka helo caseeyaha uu ku xaliyo dhammaan nolosha qoyska ibraahim oo aan kula kulmay mid kamid ah goobaha uu ku shaqeeyo ayaan ka wareystay noloshiisa iyo waqti xaadirkan wax ku kalifay inuu ku shaqeeyo xirfadda loo yaqaan caseeyaha ugu horeyn waxaan ugu bilowdaa magacaaga sadex ibraahim abdullah xasan ibraahim sana jirata 13 sano jira 13 sano jirta waa maxay marka xirfadda aad ku shaqeysatid baalasha ka shaqeeya baalash laata xaafadda aad ku nooshahay mise qofood ayaa kula nool 6 qofood 6 qofood kula nool xirfaddan baalashka ma ka bisha 6 qofood mase xirfaddan ka bilaha baalash xirfadda baalash ka bisha maalintii imise lacag ah ayaa shaqeysaa 7 mise 6 ilaa 7 shaqeysaa ugu badnaan 7 ugu yaraana 6 ugu yaraana 6 door lacag marka xaga geysaa xaafaddan ku bilaha 6 qof 6 qofood ku bisha adigu waxaan barataa aniga dugsiga saan bartaa dugsi quraan gata goormay aad dugsiga dugsiga 12 aada 2 saacna la soo sax 12 aroornimo aada 2 saac barqanimana ka soo baxda kadib markaad suuq soo baxday maxaa qabataa maxaan qabtaa kalaana caseeya shaqada casaynta soo aada inta ka shaqeynaysa xirfadan casaynta ku shaqeynaysa wax dhibaatooyina oo aad kala kulantay dadka ma ay jiraan ay maxay yihiin marka meherida dadka ka shaqeysaneen waxaan dhahayn meeshan ka kombiyaalka inay darbaan kombiyaalka inay qaadaan meeshan ay ciirneen dadka meherida ku shaqeynaysiina meeshan ka ciirna kombooyinkan ka qaadanay dhibaatooyin kala kulantay ma ay jiraan ay maxay yihiin marka koow aysan lacagtan u dhibaya dadka koow aysan lacagtooda ku dhibaa muddo intee lag ay ku shaqeynaysa xirfaddan baalashka 2018 soo galaadan 2023 2018 ka soo bilowdo ilaa haddana ku shaqeystaa ibraahim aabe aaw adiga aabaha aabay anigu dhintay aabaha uu dhintay allah u naxariisto ugu dambeyntii maxaa jeclaan lahayd inaad bulshada reer Gurceel iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed baa ka codsatid maxaa ka codsadaa inay waxbarasho geeyaan waxbarasho lagu geeyo maxaad jeclaan inaad mustaqbalka noqotid يعني واحد يبرا أنا عيال أنا عملي أنا راح أبرا معلم ويا النخ أنا معلم نقطة عروض أديك كل مدة وحبرت مركب بالشيء الرجل على حق عد سنة ساعين أديك وحبرش هذا هابحيان أما كعويان ويا سيب بالشيء يكون عويان ما له تلفون نمبر لسه حرير أيه لا ساعش يتضو أفرت سدح لاتيشن فروع الله بو ساعش يتضو أفرت سدح لاتيشن ساعش يتضو أفرت سدح لاتيشن لاتيشن